Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada janalkeena Afmaal Studio. Fadlan haddaa ku cusub tahay subscribe saar. Maanta waxaa idiin wadaa sheeko cajiib leh, sheeko kamid ah sheekooyinka cabsida ah. Si kada waxaa ii soo muuqday nin qariib ah, gacanta wuxuu ku sidaa shakhsi kale lugtiisa, wuxuuna ku jiidayaa dhulka. Shakhsiga kale waa in adeerkay Cali. Waan u dhawaaqay marar fara badan, waan ku celceliyay, laakiin imuusan jawaabin. Xaggiisa ayaan u dhaqaaqay, laakiin waxaan arkay walaalkay in adeerkay Cali oo nolosha ka tagay. Ninkii qariibka waa iga fogaaday, cagta ayuuna saaray qoorta in adeerkay. Qoomkiisa ayuuna u tilmaamay, way ku soo kala ordeen. Waxaad moodaa inuuba yahay ugaar ay zaman fog sugayeen. Waan daawanayaa, wax gacantayda ku jiro aan samayn karana ma jiraan. Mar labaad ayaan xaggiisa u dhaqaaqay, laakiin waxaa ii saajiyay rajulkii qariibka ahaa. Markaana cagtiisa ayuu iga saaray xabadkayga, wuxuuna ugu yiri, boqorka Barhuud kamaanu zuulin inuu ku doonayo adiga. Waan u sheegay, waxaan ku iri, wax adduunkan muhiimada aan ka leeyahay ma jiraan, haddiiba aan waayay in adeerkay xaggiisa ii kaxayso haddaad doonaysid. Qoorta ayuu i qabtay, ceelka xaggiisa ayuuna ii jiiday. Waxaan arkayaa wejiyadooda foosha xun oo i soo eegaya aniga. Way i fiirinayeen dhan kastoon u dhaqaaqo. Markii aan ceelka gaaray, waxaan maqlay cod oo leh, soo dhawaaw si aad uga mid noqoto atbaacdayda. Wax xumaana kuma taabanayaan, isku soo tuur ceelka. Hortayda waxaa soo maray canjeelka nolosheeda oo idil. Waxaan soo xasuustay wax walba intii aan noolay soo maray. Waxaan soo xasuustay hooyaday aana arkin muddo laga jooga 2 bilood. Waxaan soo xasuustay awowgay kafaalo qaaday aniga tarbiyadeeda, wax badan i jeclaan jiray. Waxaan soo xasuustay geerida aabahay oo u geeriyooday si qaab daran. Anigana waxaan ahay wiilkiisa kaliya, maantana waxaan u geeriyoon doonaa sidii aabahay u dhintay oo kale. Waxaan soo xasuustay salaadii cishay aan weli tukanin. Waxaan ku dhawaaqay shahaadateynka, waxaana rabbigayga ka dalbaday cafis iyo dambi dhaaf wax walba aan soo sameeyay. Ugu dambeynna waan isku tuuray ceelkii. Isha inta la isku qabto oo kale in la eg. Waxaan is arkay anigu ku jira makaan waasac ah, aadna u madow badan. Dhulkiisuna madow badan yahay, saqafkiisuna ka sii madow yahay. Naftayda ayaan weydiiyay, xageen joogaa aniga? Si kada jawaabta ayaan ka maqlay rajul aad iga fog, shakligiisana aad moodo bini aadan oo kale, laakiin mar walba uu soo dhawaado foolxumadiisa ay sii ziyaadaysay. Wuxuu igu yiri, waxaad joogtaa caalamkeena, caalamka jinniga, caalamka maradada iyo caalamka shayaadiinta. Waa uu ii soo dhawaaday, madax ayuuna i qabtay. Wuxuu bilaabay inuu iluxayo, waxaad moodaa cajiin gacantiisa ku jira inaan ahay oo kale. Waxaa taa ka sii cajab badan, maba aana dareemin wax xun. Waxaad moodaa inaan joogo caalam ka duwan caalamka annagu aan ku noolnahay. Si kada waxaan maqlay sood, waa soodka taleefankayga, waxaana ka yeerayay aayado quraan ah. Ninkii umuusan dulqaadan aayadaha quraanka, wuxuu bilaabay inuu argagaxayo. Gacanta ayuu i qabtay, kor ayuu ii qaaday, kadibna wuxuu igu tuuray dhulka. Waxaan waayay miirka ayaa iga tagay. Saacadeydii ayaan waayay ee agteyda qaaliga ka eed, maxaa yeelay waxay ahayd haddii ugu dambeysay waalidkayga uu i siiyo. Waxaan waayay taleefankaygii. Markaan soo miirsaday, waxaan is arkay aniga oo jiifo sariirtayda qolka awowgay, farxad badana oo sacaado badana. Waxaan arkay idil waxay ahayd riyo argagax leh, laakiin alxamdulillaah, waxaasoo idil waxay ahaayeen riyo. Fadlan haddaa ka heshay qisada, sii faafi, like saar, mahadsanid.